السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal soo dhawaada sida aad nooga barateen isbuuc walba waxaan soo gudbinaa hal muuqaal oo xiiso badan oo ku saabsan barnaamijyada caafimaadka ee bulshada ay ka faa'iideysan karto. Isbuucan waa isbuucii ugu horeeyay ee Ramadaanka. Waxaan rajaynaynaa inaan soo gudbino mowduuc la xiriira Ramadaanka sida aan hore u ballan qaadayba. Inta aanan mowduuca guda galin waxaan jecelnahay inaad like saarto si muuqaalkeena uu u gaaro dadweynaha kale oo aad u xiiseynaya ayagana inuu soo gaaro muuqaalada caafimaadka ee aan baahinayno. waad mahadsan tahay waadna ku sharfan tahay sida wacan ee aad noola socoto muuqaalkeena. waxaan guda galaynaa mowduuca maanta aan ballan qaadnay isbuucii hore. mowduuca aan ballan qaadnay wuxuu ahay farqiga u dhexeeyo soonkii hore iyo soonka hadda joogo. waxaan u kala qaadi doonaa 3 qaybood ama 3 farqi oo waaweyn. farqiga koowaad, farqiga labaad iyo farqiga saddexaad. farqiga koowaad ee u dhexeeya Ramadaankii hore iyo Ramadaanka hadda casriga ah ee aan soonno ayaa waxa uu yahay xaddiga raashinka la cunayo. sida aan wada ogsoonnahayba raashinka waagii hore aad u yaraa, dabcan waana la yareyn jiray, balse xaddiga raashinka ee hadda la cuno ayaa wuxuu noqday mid 2 laab iyo 3 laab ka badan raashinada la cuni jiray. sidaa darteed arrinka wuxuu saameyn ku yeelan doonaa caafimaadka qofka bini'aadamka. haddii aan faahfaahino qodobkaasi, raashinka sida caadiga aan ognahayba waa la yareyn jiray. nabigana sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka haddii uu raashin cunayo calooshiisa inta ay qaado 3 marka loo qaybiyo, qayb ka mid inay raashin ahaato, qayb ka midna ay biyo ahaato, qaybna iyadoo bannaan oo hawo ku jirto loo dhaafo. taas waxay saacidaysaa caafimaadka jirka. guud ahaan isticmaalka raashinka ayaa waxaa waagii hore nabiga sallallahu alayhi wasallam uu saxaabada ku booriyay in ay u cunaan in yar oo kooban oo raashin ah oo caloosha qayb ka mid la buuxin karto ayadoo weli aan la dhargin, in qayb biyo lagu daro kadibna la joojiyo. taas macnaheedu waxa waaye ha la cuno raashin yar. marka xaddiga raashinka yar ee la cuno caafimaadka wuxuu ka tari karaa wax aad u fara badan. wuxuu keeni karaa qofka caafimaad ay u keeni karaa haddii sida hadda maanta dhacdo Ramadaanka loogu soo adeegto sida bilaha kale aan loo adeeganin, loo cuno raashinka si aan bilaha kale raashin loo cunin, biyo loo cabo si aan raashin biyo loo cabi jirin waagii hore, oo markaa caloosha inta la buuxiyo hawada la dhameeyo maanta dhan la daadsado kadib xanjo la raadiyo. taas waxay keenaysaa caafimaad darro. waa farqiga ugu horeeya u dhexeeya Ramadaankii hore iyo Ramadaanka hadda jiro. Ramadaankii hore waxaan dhahnay qofka waxaa la amri jiray, Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam amri jiray inuu cuno 3 qayb ka mid ah. qofka asigoo weli baahan laakiin raashinkii wax ka cunay ayuu joojin jiray oo cabi jiray. marka hadduu biyo haysto, sharaab haysto oo kuluu sharaabo waa marka halaha hore cunitaanka waaye, halaha dambe cabitaanka waaye. weliba xataa waxaa horeeyo raashinka horeeyo. okay, sida maaragtay ka muuqata aayadda in lagu camal falna muhiim ay tahay. saxaabada marka waxaa lagu dhiirigeliyey oo ay samayn jireen ay tahay in la cuno raashinka qayb yar oo ka mid ah, kadibna qayb yar oo biyo lagu daro. garaaf biyo cabtid banaha oona kaa goyso caloosha waxay ku keenaysaa stress ku keenaysaa. caloosha sida aan wada ognahayba waxay stress u keenaysaa. raashinka aan cunno caloosha waxay martaa process shiitaan martaa. processkaas wuxuu u baahan yahay nafis, u baahan yahay hawo, u baahan yahay oxidation, u baahan yahay hawada u baahnaay. haddii aan la siinin oo uusan helin hawadii u baahnaay, waxay imaanayso in calooshii jirro iyo inay stress ku dhaco, ayna qaban wayso wax shaqo ah, kadibna maaragtay waxa weeye shaqada halka ku istaagto. marka caafimaad darrada waxyaabaha keena waxaa ka mid ah raashinka haddii uu badan yahay calooshina uu tago, calooshii jaam ay noqonaysaa, mana awoodayso inay shaqayso, mana awoodayso nafaqada soo saarto, mana awoodayso in maaragtay si habsami leh ay shaqada u fuliso. sidaa darteed marka waxaa imaanayso khalal ku yimaado dheefshiidkii iyo dhammaan adeegyadii caloosha ay qaban jirtay. sidoo kale waxaa khalal ku imaan doonaa jirkii qaabka uu maareyn yahay sokortii. maxaa yeelay sokor xad dhaaf ah ayaa soo galayso, cabitaano macmacaana la cabayaa, fruits la isticmaalayaa. waxyaabahaas oo dhan waxay ku darayaan jirka sokor fara badan. sokortaa faraha badan lana uma adkeysan karo jirka, oo xamiitiga oo kale maadaama uu soo saaro sokorta wax lagula dagaalo oo insulin ah oo jirka inuu isticmaalo. insulin oo kale waxay saacidaa jirka inuu isticmaalo sokortii jirka soo gashay. haddii marka ay dhacdo in aad isticmaasho raashin fara badan haddana dhanka kale aad insulin badan haysanin, meeshaas waxaa halis ugu gali kartaa in sokortaadii ay hal mar cirka gasho, dhaafta xadkii loogu talagalay in gasho maaragtay sokor iyo ku keento jirrooyin ku keento. marka waxyaabaha aad ku fiican waxaa ka mid ah in raashinka la yareeyo. marka
maadaama raashinka in la yareeyo ay tahay muhiimada ay tahay in raashinka laska yareeyo xilliga ramadaanka lana cuno raashin yar faa'iidooyinka laga helo maxay tahay marka in raashinka la yareeyo okay faa'iidooyinka waxa ugu horeeyo waxaa yaraado calool xanuunka inta aad raashinka badinaysa calool xanuunka baxaysid qodobka labaad waxaa yaraado gaaska caloosha lambar 3 waxaa ziyaado adkeysiga jirka ayaa ziyaado adkeysiga jirka uu leeyahay lambar 4 waxaa dayactir lagu sameeyaa unugyada jirka oo dhan lambar 5 waxaa la kordhiyaa difaaca jirka lambar 6 waxaa dago caloosha cadaadiska dhiigga ayaa dib u hoos u dhaco lambar 7 waxaa laga hortagaa kansarka bilowga ah oo soonka wuxuu ka hortagaa kansarada lambar 8 waxaa sidoo kale laga hortagaa sokorowga waxaa la nadiifiyaa caloosha oo la habeeyaa lambar 9 waxaa la dayactiraa dheefshiidka iyo caafimaadka caloosha oo idil lambar 10 waxaa waaye guud ahaan caafimaadka caloosha ayaa aad u hagaagsamo marka waxaa jira dhibaatooyin oo keeno raashinka faraha badan leh maadaama raashinka yar faa'iidooyin aan ka sheegnay dhibaatooyinka raashinka oo badan oo keeno waxaa ka mid ah sida soo socota halkan waxaan kusoo gudbinaynaa dhibaatooyinka uu keeno raashinka haddii aad iska badiso waxaan soo sheegnay haddii raashinka ay yareyso faa'iidooyinka laga helayo haddii raashinka la badiyo dhibaatooyinka imaankan waxaa ka mid ah dibir caloosha calool xanuun qodobka labaad waaye qodobka saddexaad raashinka oo caloosha ku daaho oo aad waqti dheer qaato lambar 4 oo jeermiska iyo bakteeriyada caloosha ku jirta oo ku badato lambar 5 oo ah labo inuu ku yimaado caloosha ay qasanto lambar 6 oo ah dheefshiidkii oo istaago lambar 7 sokortaadii oo kor u kacdo lambar 8 dhiigii oo sii kaco oo dhiikar iyo waxaas qofka looga baqo lambar 9 stress oo ku yimaado caloosha lambar 10 oo ah jirka oo tabar dhigo hurdo badan u baahatid caajis iyo daal fara badan waxaas oo dhan waxaa keenayo marka raashinka iska badiso ku fiirso markaad afurta ka bacdi ma dhaqaaqi kartid ballamihii aad lahayd iyo asxaabtii aad la kulmi kartid tabarta ka dhamaanayso caloosha ka korayso tabar ma haysid sokortaada way ka ceesaayo dabcan qof iska fadhiyaa tahay sokorta ma isticmaalaysid waxaas oo dhan waxaa imaanayo in calooshaadii caafimaadkeeda aadan ka fikirin dhibaatana ku imaatay marka adigoo ka fikirayo faa'iidooyinka ay leedahay raashinka in la yareeyo 10 qodob iyo 10 qodob oo ah raashinka in la badiyo dhibaatooyinka imaanado ka fikirayo waxa ku haboon in raashinka iska yareyso cuntada ay isticmaalaysid ay noqoto cunto xadidan ha isticmaalin cunto aad u fara badan oo calooshaada cadaadis gelin karto hana isticmaalin biyo aad u fara badan oo keeni karo in maskaxdaada ay xanuunto ama jirkaaga uu dhibaatoodo haddaba qodobkeena koowaad ee farqiga ugu horeeya ee u dhaxeeyo ramadaankii hore ramadaankan hadda joogno halkaas ayaan kusoo koobaynaa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysato mawduucan oo ahay mawduuc aad u qiimo badan dadkana waxaa u malaysaa ramadaanka in la dhahay wax cunuga la furay macnaheedu ma ahan ramadaanka in wax cunuga la furay wax cunuga ramadaanka in la yareeyo ayaa loogu talagalay qof walbana oo raashinka in yaroo xadidan ka isticmaalo raashinka lagu waashana waxay keenaysaa caafimaad darro saddexdan waxaan ku talinaynaa bahda caafimaadka ee kasmo waxay ku talinayaan in dadka ay markay raashinka cunayaan si xadidan raashinka u cunaan iskana ilaaliyaan in raashinka ay ku xadgudbaan ama dhibaatooyin caafimaad darre u keenaan waa mahadsantihiin sida waxaan ula socoteen mawduuceena maanta farqiga labaad iyo farqiga saddexaad oo dhiban insha Allah mawduucyada soo socdo oo soo gelin doona noqonaysaa waadna ku mahadsantahay sida waxaan ula socotay mahadsanid